waxaan oo dhan maxay igu dhaceen aniga aabo hal daqiiqo noloshayda ka mid ah xitaa farxad waan awoodi waaye hal su'aal oo kaliya ayaan isweydiiyay su'aashaasna waxay tahay ninkaas muxuu kaaga fogaado dib kuugu soo laabanaya filimku wuxuu ku bilaabmaa Aasiya Bradan oo la hadlaysa aabaheed iyadoo niyad ahaan aad u culaysan waxay muujinaysaa murugo iyo jahawareer ku saabsan nolosheeda iyo guurka gaar ahaan su'aal weli maskaxdeeda ka dhex guuxaysa oo ku saabsan qof ay jeclayd aan u iman ugu dambayn waxay ka codsanaysaa aabaheed inuu siiyo 2-4 saacadood si ay meel uga baxdo oo ay kaligeed uga fikirto aabaheed ayaa ka codsaday Aasiya inay baajiso kulanka akhrinta buuggeeda ee ka dhacaya Delhi balse iyadu waxay ugu jawaabtay inaysan mar dambe ka carari karin wixii hore u dhacay muuqaalku wuxuu markaas u wareegayaa saldhig tare Aasiya waxay wicitaan ka heshaa saaxiibteed Anera oo weydiisa sababta ay ugu jirtay ballankii guurka ee ay la lahayd Sameer daqiiqadii ugu dambeysay Aasiya waxay ugu jawaabtaa inaysan guursan karin isla markaana aysan doonayn inay mar kale samayso qaladkii hore Anera waxay kula talisaa inay bilowdo qorista buuggeeda cusub balse Aasiya waxay ku jawaabtaa inaysan awoodin inay wax qorto sababtoo ah mar kasta oo ay furto laptopkeeda waxaa maskaxdeeda ku soo laabta su'aal dhibaysa su'aashaasi waa haddii uu i jeclaa maxaa uu iman waayey Anera waxay ku tiri runtu waa in uusan weligiis ku jeclaan taas markay maqashay Aasiya way xanaaqday oo taleefankii ayay ka xirtay kadibna Aasiya waxay fuushaa tareenka daqiiqada yar kadibna sheekadu halkaas ayay ka sii socotaa